qaybteedii labaad waxaan akhrin doonaa anigoo ah maxamed axmed sheekh. sheekada qaybteedii hore waxa ay noo joogtay caliya caddaawe oo canab ku yidhi waa inuu habeen dambe iyo siddeeddii goor casar ah baa canab isdul taagtay asli oo hurda markaa bay ku daartay raadiyihii oo ay ka socotay haas macaan oo magool qaadaysay markay toostay bay ku boodday labadadan ka dhunkatay oo ku tidhi wey iska waran saaxiib beryahan kuma arage sow eenagii doraad wada joognay bay asli ugu jawaabtay waxaana dhex maray doodan asliyey caawa sidaan filayo wax barnaamij ah ma lihid bay ila tahay barnaamij caynkaas ah ma lihi waxaan doonayaa in aan soo booqdo habaryartay oo deggan kaaraan oo maxaa kaaraan fogaantiisa kugu wata tagsiba heli mayside kooriyeeri baan ka raacayaa afrirdood bay asli ku jawaabtay canab oo ka baqaysa in hadalkeeda la maqlo baa intay ku soo dhowaatay asli ku tiri saaxiibay haddii aad ogaan lahayd caawa barnaamijka aan inoo hayo waad qosli lahayd intaanay hadalkii dhammaystirin baa asli farxad la soo boodday oo tiri ma riwaayad fiican baa socota maya riwaayad maxay qiimo leedahay waxaan shalay subax la kulmay wiil aan aad isugu dhaarnahay muddo badanna aan isgoobaynay caawa ayuuna labadeennaba na casuumay wuxuuna wataa baabuur wuxuuna ina geynayaa jungal asli dhugmo uma lahayn hadalkii canab waxaa madaxeeda ku wareegayey oo haddii saaxiibkeed casuumay may aadu maxaan anigu dhexdooda ka samaynayaa anigu ma socdo ee keligaa aad baa asli jawaab niyadda ka soo go'day ku tiri canab eraygaas aad bay uga naxday inkastoo aanay muujin waxayna tidhi walaal macan asli jilbahan ku haystaa hay ceebeen waan ku baryaa balan ayaan qaaday maxaa ku jaban aniga iyo saaxiibkay waxaan garanay in aan ku casuunno waxba ha ka baqin waa loo baahan yahay in aan saaxiibkaa barto adna aad kayga baratid asli intii hadalka canab ay dhegaysanaysay bay go'aan qaadatay iyadoo leh mar haddii 3 qof aad tihiin wax xumaato ahi dhici maayaan ee saaxiibaddaa raac yayna kaa caroone waa tahay meeqa sac baad baanta leedihiin 8 caawa wakhtigu waa dhow yahay dhaqso u libiso asli iyo canib oo dharkoodii kii ugu bilicsanaa qaba baa soo istaagay halkii ay ballantu ahayd oo ka soo hor jeeday dugsiga dhagaxtuur ee shaneemo hodan gadaasheed ku yaal wax yar kadib gaarigii baa yimid markaasaa caddaawe yidhi ballantii waad oofiseen waa 8 oo gaw ah cali baa yidhi markaa ina keena markii baabuurkii la fuulay uuna dhaqaaqay baa canab oo kursiga hore fadhiday intay gadaal oo asli iyo caddaawe wada fadhiyeen u soo jeesatay tiri barasho wanaagsan gabadhan waa saaxiibtay aan isku dhimanno oo ruuxba aan nahay magaceeda waxaa la yidhaahdaa asli isku dugsina waan nahay wiilashaanna waxaa la kala yidhaahdaa cali oo saaxiibkayga ah intay timaha ka salaaxday iyo caddaawe oo aan rajaynayo inuu saaxiibkaa noqdo markay isbartay bay hore u jeesatay asli ama kaag iyo aamusnaan baa ka soo haray waayo saaxiibteed uma sheegin ninkan labaad xaggee aadnaa idinkaana xukumee buu yidhi cali oo baabuurka saarnaa ama baabuurka waday canab oo u holatay in ay tidhaahdo jungal baa caddaawe oo ogaa in baabuurku basiinku ku yar yahay dhaqaaluhuna iska liito oo aakhir mushaar lagu jiro yidhi nagee tarebuunnada intii baabuurku socday labalabo ayaa loo sheekaysanayey canab iyo cali hadalkii si fiican buu isugu baxay qosol iimaad baana ka dhacaysay
asli oo aamusneed waxay ku ekeed oo qur ah in ay ka jawaabto su'aalaha la weydiinayo. Cadaawe markii lambar 4 laga soo leexday buu asli gacanta intuu duleedka ka saaray xaggiisa u soo riixay. asli oo xanaaqsan baa cod dheer ku tiri iyadoo weliba iska qaadaysa, iga daa jaale gacantaada. haye igaraale ahaw buu ugu jawaabay intuu midigtiisa la soo noqday, waxaana markii la casheeyey loo soo noqday magaaladii. asli in ay degto ayay doonaysay, hase yeeshee waxaa saaxiibteed ku adkaysay in guriga cali ay soo arkaan. markii la gaaray gurigii cali oo ahaa firaaqo, afartoodiiba waxay fadhiisteen barsadda. asli mooye 3 kaleba sigaar ayay daarteen. Cadaawe oo kursi u dhow fadhiyey baa intuu xabad sigaar ah u shiday u taagay asli, hase yeeshee waxay tidhi, mahadsanid, anigu sigaarka ma cabo. cali canab oo faraxsan iskuna dheggan baa gurigii u firaaqeeyey asli iyo cadaawe, waxayna aadeen maqsin kale. cadaawe wuxuu bilaabay shooko dheer, wuxuuna asli uu dhali karay uu kaga dhaadhiciyey ama uu kaga adkaaday waayo aragnimadiisa, wuxuuna ka dhacsiiyey in uusan gaabsi ka rabin ee uu jecel yahay, doonayana inuu la saaxiibo. cadaawe asli intuu gacanta qabtay buu fariisiyey iyadoo aan raalli ka ahayn, waxayna isku dayday in ay sare u kacdo, hase yeeshee wuu u diiday. dooni maayo in aan halkan joogo, ii oggolow, gurigeygii baan aadayaa bay asli ku celcelisay. hase yeeshee cadaawe oo kaashanaya waayo aragnimadiisa wuu hubay in xaalku siduu rabay ku dhammaan doono. asli, waan ku jecelahay soo kuma odhan, xabiibi soo dhowow, waan kuu dhimanayaa, la'aantaa noloshu wax qiimo ah ma leh. erayadaa iyo kuwo kale oo ka sii macaan badan buu ku afgabaabinayey cadaawe si uu beernugeel uga helo asli, iyadoo gacantiisa iyo afkiisa ay isla socdaan. ugu dambayntii asli oo uu adkaysan weeday erayadii xoogganaa iyo arartii cadaawe, dhalanteedkii bay run moodday, waxaana qaaday cadifad ka saa'id calaysay oo gabarnimadeedii burburisay. markii arrintii xumaatay baa asli ogaatay khatarta ay ku jirto, degdeg bayna u carartay iyadoona cidna waxba weydiin. cadaawe markii muraadkiisii bogtay dan kama lahayn jahwareerka ku dhacay asli, wuxuuna cali iyo canab u sheegay in ay asli tagtay, isna uu sii soconayo. canab baa markaa tidhi, oo maxaa dhacay oo idin dedejiyey? nabadgelyo iyo tumasho wanaagsan buu intuu yidhi cadaawe durbadiiba baxay. asli habeenkii oo dhan waa soo jeeday, subaxdiina dugsi ma aadin. asli oo isla hadlaysa hadbana dhinac isu rogaysa baa hooyadeed u soo gashay oo ku tidhi, naa asli, hooyo, waa adiga saaka iskuulkii ka baaqdee, maxaa kugu dhacay, ma jiran tahay? heedhe, indho dheeridaa xaggee lagaa hayaa? hooyo, waan iska roonahay bay ugu jawaabtay asli. hooyo macaan, ma kuu keenaa quraac? hooyo, saaka wax cunto ah ma rabo. asli hooyadeed islamarkiiba way garatay in gabadheedu u baahan tahay sharaab, sidaa darteed waxay u wacday kuusey oo ahayd adeegtadii qoyska, waxayna u dirtay 2 qasac oo yooga ah. markaa kadib bay intay sariirtii kula soo fadhiisatay asli oo si raxmad leh beerka uga taabatay, bay cambaro weydiisay gabadheeda halka laga hayo. aslina waxay ugu jawaabtay,
hooyo caloosha waxba kama qabo, waa nigii bishii hore saamiga iska qaaday la ina yidhi waxba ma qabtid. awjaamac oo ahaa asli aabbaheed baa maqlay doodii, markaas buu intuu gurigii soo galay oo cambaro il canaani ka muuqato ku fiirshay, isagoo isla markaana ku foorarsanaya asli gacantana dhabanka ka saaraya ku yidhi, maxaad iigu sheegi weeday in gabadhu jiran tahay? goormaan kuu sheegaa amba iminkan ka war helaye baa cambaro ugu jawaabtay. awjaamac intuu gacanta qoorta ka saaray asli buu ku yidhi, aabbe iska waran, see tahay, xaggee lagaa hayaa? goormaa cudurku kugu bilowday? intaanay asli jawaabin baa cambaro duqa u sheegtay xanuunka asli iyo calaamooyinkiisa. awjaamac intuu istaagay buu yidhi, cambaroy, anigu shaqadii baan aadayaaye gabadha u dadaal oo waxay doonto u samee. xaafadihii u dhowaa reer awjaamac oo dhan oo maqlay jirada asli oo aad ugu dheerayd waxay ku soo xoomeen sariirtii asli, iyagoo u sheegaya in ay aad uga xun yihiin, ilaahayna ka baryayaan inuu caafiyo. markii dadkii waaweynaa ay ka tageen, waxaa ku haray gabdhihii saaxiibadeed ahaa, gaar ahaan kuwii ay isku da'da ahaayeen oo gelinka dambe dugsiga isla dhigan jireen. dhegaystayaal saaxiibayaal, waxaa intaas noogu eg sheekadii ayaan daran qaybteedii labaad. tan intaanu qaybta xigto kulmi doonno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. maadaama aan geli rabno sanadka cusub ee 2012, waxaan door bidnay in aan ku soo gabagabayno hees ku saabsan sanadka cusub. tan iyo qaybta dambe, sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qaybteedii labaad waxaan akhrin doonaa anigoo ah maxamed axmed sheekh. sheekada qaybteedii hore waxa ay noo joogtay caliya caddaawe oo canab ku yidhi waa inuu habeen dambe iyo 8dii goor casar ah baa canab isdul taagtay asli oo hurda. markaa bay ku daartay raadiyihii oo ay ka socotay hees macaan oo magool qaadaysay. markay